carabku kii hore maaha waa mid dheer oo caalamka dabadiisa gaadhaya iyo cod dheer oo alaab loo isticmaalayo oo dadka googoynaya oo kidfaya qofka dadka had iyo jeer wax ka sheegaya ama ceebaynaya ama xabanaya waa inuu ogaadaa cad sunaysan inuu cunayo hilib sunaysan buu cunayaa wuu ku dhiman doonaa waxaa aad u cajiiba aayadaha markaad dhegaysato safxad keliya ayaa ilaahay uu ku sheegay 5 jeer canaan lowlaa ayaa 5 jeer soo noqonaya safxad keliya ama bog keliya waa canaan weeye maxaa sidaa u tidhaahdeen maxaa saa u odhan weydeen macnaa cirdiga iyo sharafta muslimka halkay gaadhsiisan tahay waxaa taa kaba sii xeel dheerba iska daa qofku inuu qowl iyo ficil kaga qayb qaatee inuu dareen kaga qayb qaataababa looga digayba إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين يحبون وضد شعلهم وحي شعلهن عيبتا ضدك الشهادة عيبتو دون إفافت ويلي يقوار متكستاد رقي الدمر متكستاد قف مسلمو شعلين وعيبوبه وعيبتي صايب برنامج كتمادي عالم كوب بحث وشعل هذا وما بو باهين بيسوي بل كورد dareenkaas uu ku farxay wuxuu jecel yahay un hebel ama heblaay ama reer hebel ama kii ay istaageen maslaxad iyo maal iyo siyaasad iyo wixii dayreeyay isku qabsan jirnay midku doonaya aade ayay isku seegeen markaas wax yar ka soo ifbaxeen markaas uu niyadda ka jecel yahay kaas si uu uga haro oo kaarku uga gubto armuu ceebo ma lagu sii daldala buu leeyahay ceebta dareenkaas ku jira waxba ma oran hadda kaas halka cadaab gaadhay وإلهي وعلى سبحانه وتعالى محاض مرينسا كقول يفعل كقيب قاته الدنيا دورن قارسينية وأيام درها أدوي وحاددات بإلهي الرعية وحده والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلهي بأكسون قار بدن وإسقرين إياه ويدين كويدان وقين هرين هذا عجيب وي ساد دلادد وعايشة وإلا يابت آياتك إلهي وكبري على يدي صفوان أصحابي الأورنج إلى الله شاقي waxay leedahay marnaba ismaan lahayn ilaahay baa arintaada ka hadlay quraanka ka hadlay yutla ila yawm alqiyam laakiin waxaan islaha riya nabiga la tusi doonaayo ilaahay uu kugu beeriyay doonaa waba arin cajiiba bay leedahay marka qofka cafiifka ee dhowrsoon hadii carabkaaga aad ula baxdo ama ilaahay baa beeriyay ama adooma aan hore u hadli jirinba nabiyullaahi yuusuf yaa markhaati u noqday oo shaahidun min ahliha ilmayar sidoo kale jurayj ninkii la odhanayay iska cibaadaysanayay ilmo yar baa u markhaati kacay sidaasba nabi ciise calayhi salaam hooyadii isagaa u markhaati kacay markii la weysinaysato isaguna waa galac marka waxaad halkaa ka arkaysaa arrintani culayska ay leedahay maanta inala fudud ee dad badan ay suuq ku raadinayaan qofkii wuxuu isleeyahay waxaan baahiyo dabeetana meeshaada yar dukaankaaga yar hala soo wada galo hala eego youtube-kii facebook-kii wixii yaraa inkaarta qabay hala soo wada eega buu leeyahay markaasuu hayaa ay odhanayaa hebel bacaan ka noqday heblaayo yaa miskiin waxa kaaga fiicnaa inaad ummadda kalsooni ka kasbato waxaad u gudbinaysaa oo noqdo wax khayr leh iyo wax cilmiya iyo daraasado iyo akhbaar sugan dhalinyarada had iyo jeer kuwa channel-adooda habka u isticmaala iyaga ka dad badan oo ka customer badan kuwa kale beenta sheegaya dadka ceebaynaya qofku hadduu akhbaar sugan ummadda u baahiyo iyo macluumaad iyo daraasado cilmiya iyo xaqaa'iq kaasa dadku aad ugu xidhan yihiin oo aad looga faa'iidaystaa kan kale waxa la ogaanayaa markuu wax soo wadaba wixiisu inuu been yahay iyo wax hoosta ka daloola waxaynu ka digaynaa sida nusuusta iyo axaadiis iyo quraanka inaga ku dhaqmayna arrintaa ceebaynta ee casrigan wareegaysa ee ummadami ay isugu jabayso rasuulku sallallahu alayhi wasallam nusuus aad u badan buu uga digay ceebaynta iyo carabka وحول يا معشر من آمن باللسان ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته حديث صحيح أبي داود كسقنا
وردت باغ فيديو وحول واركوا أفك كأشهاتيو إن إيمانك قلبي جود جلينو بالهب لقط كلها الله أضيق يا النبي صلى الله عليه وسلم هو أفك كأشهاتي يا شهادة ذو أفك هاي إيمانك قلبي جود جلينو ضدك حمانينا ضدك عيبيننا ضدك عورة ذو ضبناك صورنا قفك ولا الكيس مسلم كعورة سدبق له بنانك صورنا وحدونا يبها هذا قفك صحتي وعيب والله بوامد إنه عادة يستيه وحمانته هاي عادتي marka wada la maraabuu leeyahay hay'adaha fulintii cidii wax ka qabanaysa ayaa loola tagaya haduu yahay qof hal mar simbir raxdayna waa la asturayaaba waa la asturaya caadayste ma qofku hadii uu awrada dadka daba galay ilaahayna awradiisu daba galaa qofku ilaahay daba galana isagoo aqalkiisa dhaxdiisa joogu ilaahay ceebeeya waligiiba ha isiraahdo wad qarsoonto ilaahay baa ku ceebeynaya in dhalinyaro Sacuudi oo toobad keenay ayaa qisu ka sheekeeyay tan tusaale u noqon karta qofka dadka isku dayeen oo ceebeeyay ilaahay gurigiisa dhaxdiisu ku ceebeeya wuxuu waxaan ku kakanaa dumarka inaan daawado jin noocaas ah ku jiray ilaan jin cayro in kaal qaba ku jira dadka noocaas ah marka waxaan la heshiiyay buu dumarkan u fiirsada arintu khatarta ay leedahay dumarkan koofeerada saalonka Soomaaliya ee dumarka qurxiya mid meel haysataan la heshiiyay waxaan ku heblaayo dumarka aad qurxinayseed marada ka qaadaysa kabarada yare khafiga ay igu soo sawiro midii walba lacagtaas aad leedahay sawirkeeda ay keento ka tayn karto markii qofku u dhacdo bal halku uu ooman yahay way soo sawirtaa tii ay qaawisaba mid walba waxay tiraahdaa naan aad ku dhalaaliye balaydhkana isu dhig maradana dhigo dumarkii aroosadaha ahaa kabaladeedina way ka duubtaa lacagtiina way ka qaadataa saaxiibadii buu isaguna ula tagaayo intay sii baahiyeen la daawado waaba lagu majlis waaba lagu qaylaaba halkaas la daawadaa markuu arkay wixii xumaanta uu leeyahay iyo dadka kala nooc ah iyo awrada loo soo gudbinayo isagii baa wada haddana ka yaqyaqsooday marka wuxuu la hadlay hablaha walaalaha inay ooridiisii wuxuu yiri ha tagina bahalaha koofeerada isagina uu ka daawaday isagina xumaantii buu ka jaaj garaysanaya wuxuu yiri ha tagina iska ilaaliya bahalaha waa meel lagu qurmay ha tagina laakiin de waxa meesha taala qofka dadka daba gala ilaahay baa daba gala tii xaaskiisa ahaydoo gabadha yaro qurux badana way ka siibatay koofeeradii bay u tagtay tii koofeerka haysatay lafteedii bay u tagtay iyana kabaradii bay ugu naftay kadibna awradeedii bay doobtay cajaradii bay ninkii u soo gudbisay isna saaxiibadii buu bilaabay inuu la daawado bigtii laga siiyay mise waaba tii qoyskooda wacdan laga soo siiyay cajaradii la istaarayba mise waa tii guriga u fadhiday uu koofeerka atagi ayaaba ka soo boodayba intuu qayliyu sare u booday ayuu cajaradii ka saara uu jajabiyay dabcan koobiyay ka hayaan saaxiibadii waxa igu darnaa buu kuwii aanu isugu dhaweyn ayaa noqday kuwa ugu faafin badan ceebti xaaskayga oo aan cajaradii ka soo saari waay oo aan dagaal kula galay marka taasi wuxuu tusaale u tooninkaasi uu ka waramayay inuu ilaahay ka aargoostay subxaanahu wa tacaala markuu dadka guryahoodii ugu galay isagana gurigiisii loogu galay marka waxaynu leenahay sida loo nool yahay ama siyaasiyiintu u socdaan ama dhalinyarada qaarkood u socdaan rag iyo dumarba baas meediyaha iyo agabka wax lagu baahiyo maanta loo adeegsanayo ilaahay looga toobad keeno ha la iska daayo intaan ilaahay dadka daba galin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh